السلام عليكم أحبابي ميل walba aad joogtaan waa idin salaamay kusoo dhawaada channelkayga Dorsiya fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar muuqaalkan la garee una share garee asxaabtaada bismillaahi kariim maanta waxaan ka hadli doonaa hooyada uurka leh xilliga ay ku guda jirto uurka ay hooyadu leedahay ma sameyn kartaa galmo insha Allah bismillaahi kariim muuqaalkeena intaas ay ku falanqeyn doonaa galmada xilliga uurka waxay ka mid tahay waxa ugu dambeeya ee ku jiri kara maskaxda haweenka ee uurka leh qaarkooda khaas ahaan marka ay ku jiraan bilowga uurka ama maalmaha hore ee uurka ama isbuuca ugu horeeya ee uurka halka qaybta kale ee dumarka ay ka duwan yihiin kuwii hore marka laga hadlayo ragga naftirkoodu way ku kala qaybsan yihiin galmada waqtiga uurka qaybta ragga kamid ah waxay ka cabsanayaan in ay dhaawac gaarsiiyaan ilmaha yar ee uurku jiifta halka qaybta kale ay ragga kamid ahna aysan dib u arag galmada haddaba isku haleen intee la eg ayaa lagu qabi karaa galmada xilliga uurka la sameeyo galmada xilliga uurka haba yaraatee ma lahan wax khatar caafimaad oo looga cabsado wax la xaqiijiyay in galmada uurku aysan wax khatar ah u geyn karin ilmaha uurka ku jira haddii aan la sameyn fal ka baxsan galmadaasi marka kaliya ee laga cabsan karo in galmada uurku dib u keeni karo marka haweeneyda uurka lihi ay tahay qof ka cabanaya dhibaatooyin dhanka caafimaadka ah u gaarka bilowga ilaa iyo dhamaadka uurka iyo galmada khubarada caafimaadka ku takhasusay kuwa bartay cilmiga gynecology-ga oo ah qayb ka mid ah caafimaadka oo qaabilsan cudurada haweenka iyo wixii la xiriira waxay ku cadeeyeen cilmi baaris ay sameeyeen in bilaha ugu horeeya ee uurka in aysan dumarku intooda badan jeclayn in ay galmo sameeyaan ragooda sababtoo ah uurka ayaa keenaya xaalada ka badan tii hore inta badanna dumarkuna xilligaasi waxay isku arkaan daal badan lalabo iyo matag waana taa mida nacsiinaysa galmada xilliga uurka la sameynayo hooyada balse marka laga gaarayo bilaha dhexe ee uurka inta badan dumarku way ka baxaan xaaladii dabacsanaanta ahayd ee ay ku jireen taas ayaa ka dhigaysa kuwa xiiso badan u haya xilligaasi galmada isla markaasina xubinta taranka haweeneydu waxay soo daynaysaa dheecaan qoyaankana xubinta taranka dhan isla markaasna ka dhigaysa haweeneyda mid u baahan in ay markaas sameyso sexual balse marka la gaaro bilaha dambe ee uurka waxaa isbedelaya xaaladii hore ee haweeneydu ku jirtay taas tusaale ahaan caloosha oo soo weynaanaysa culayska oo ku badanaya hooyada iyo waxyaalo kale oo badan oo markaasi hooyadu dhammaan waxyaabahaasi waxay ka dhigayaan haweeneydu mid aan awood badan iyo xiiso badan u lahayn galmada waxay kaloo khubaradu ku sheegeen ilmaha uurka ku jira in uu yahay sida kun ku dhex jirta barkin isla markaasina ay dusha kasii saaran tahay barkin kale taas micnaheedu waa in ilmuhu ku jiro badbaado wanaagsan oo uusan wax u noqon karin galmada haddii haweeneydu caafimaad qabto ayna uur yeelato isla markaasina doonayso in ninkeeda galmo la sameyso ma jiraan haba yaraatee wax khatar ah oo ka hor taagan galmadaasi marka laga reebo isbuucyada ugu dambeeya uurka ee ay fiican tahay in la yareeyo xooga badan isticmaalka joogtada ah maadaama xilligaasi ay khatar tahay in garaacida galmadu dhibaato u geysato xubka ama biyaha minka oo ku dilaaci karo haddii galmada xooga leh la sameeyo waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkani fadlan channelka subscribe saar muuqaalkan la garee una share garee asxaabtaada lana soco qaybta xigta